الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أحبتي في الله نبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه أردديسي هي الصحابة ديسي رضوان الله عليهم وحي أهيين كوا ترتمه دنك آخره خيراتك إيا وناقنا أبرتمه سيدا استراديت باوحا بنايد إن النبي وحويديان صلى الله عليه وآله وسلم سي أي أوغادان كدبنا أي أقول رقمان وأقول ترتمان إن بدن بالقرآن الكريم كوحنكو أركينا سؤال بدن والنبي صلى الله عليه وسلم ويدينه ويسألونك الله نكتش جوابه تبارك وتعالى والنبي قال لي هي سيدا كوكو جواب سيدا كله سؤالها سي وحي كإيمانا يعني إن بدنوا كم ذا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الرادس علمي كان أرادين إياه إن يكون رقمان ويآخر ذا وكسبدان أما أشقيستا وحضر كيسا أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيقو ويدينيا رسولك إلهي ودادك يا أخير بدن عمل السماء كيوا أخير بدن عمل للي ما دمحاء أقفض بدن علشان وحي دونيان مركي الله الشيغو إني أتر تمان meesha anaga aan adduunyada tartanka ugu jirno ayagu aakharay tartan ugu jireen waxa kamid ah su'aalaha nabiga ay weydiiyeen sallallahu alayhi wasallam hadith ku yimid Tabarani uu soo saaray كذلك ابو نعيم في الحليه كذلك البيهقي في شعب الايمان ابن ماجه uu soo saaray isagoo gaaban لكن لما يستركي سقوليها كلا أيوريين أي النبي صلى الله عليه وسلم سؤال صدح إسدوية اللي كويدية حديث كوحة لقورنا يا صحابي قال لي عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه وارضاه عبد الله وحليه النبي قال ويدينا صلى الله عليه وآله وسلم هدان هاي الصحابة دي وحانو نري من خير الناس رسولك إلهي وددك يا أبو خير بدن dadka yaa ugu sita dadka yaa u fiican nabigana sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jawaabaha uu bixinayay marka su'aalaha la weydiiyay jawaabuhu bixinaya kuma salaysna reehebel abtir iyo nasab kuma salaysna laana dadku dhanka waa ka siman sidoo kale kuma salaysna ruuxani manzilada uu nolosha kaga jiro taajir kuma salaysna faqiirna kuma salaysna ninkani kursi buu ku fadhiyay jahbu leeyahayna kuma salaysna laakiin waxay ku salaysantahay jawaabaha nabiga sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ruuxa aqeedadiisa iyo amalkiisa waana arin dadka oo dhan u furan cid kasta haduu dadaal sameyn karo way loo tartami karo way halkaas ay dadku ku kala tagayaan maxaa qalbigaaga ku jira maxay saxubnahaagu sameeyaan dhaqankaagu muxuu yahay akhlaaqdaadu maxay tahay halkaasaa jawaabaha nabigu dhamaantood ay ku urursanayaan salawaatu rabbi wa salaamu alayhi wuxuu leeyahay saxaabigu nabiga weydiinay sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxaan niri dadka yaa u khayr badan nabigu wuxuu sallallahu alayhi wa sallam ruuxa qalbigiisuna mahmuum yahay arabkiisuna run badan yahay arabkiisu runta ku dadaalo qalbigiisuna mahmuum yahay u fiirso عربك وحبنك ugu khatarsan xubnaha aadamaha ugu halisan qalbiguna waa xubinkaas asaaskiya saldhiga u ah jirka aadamaha oo dhan xaruntiisa way salaaxiisa iyo hagaagiisa aadamaha inuu hagaagayo ku salaysanta fasaadkiisuna waa fasaadka aadamaha iyo xubnaha intooda kala waa saas daraadeed baa nabiga sallallahu alayhi wasallam jawaabtiisu waxay ku timid labada xubin iyo waxa ku jiriya waxay sameynayaan ninka qalbigiisu mahmuud yahay
carabkiisuna run badan yahay buu nabigu sallallahu alayhi wasallam ruuxaas dadka u khayr badan saxaabadu labada arrimood mid waa fahmeen waxay yiraahdeen carab run badan fahanay oo luqadoodii carabiga ahayd bay ka fahmeen ilaa carab bay ahaayeen fahanay taa iyada ee maxaa laga wadaa ruux qalbigiisu mahmuum yahay bimaana saaxibu alqalbi almahmuum bay fahmi waayeen su'aasha bay nabiga ku celiyeen sallallahu alayhi wasallam waxay yiraahdeen ninka qalbigiisu mahmuumka yahay maxaa laga wadaa nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam wa ruuxa wa midka alla ka baqa nadiifta ah wa qalbi alla kacabsi uu ku jiro haddana nadiif oo saafi ah wa sifa sirri nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri dambi male xad gudub iyo gardarro male xasad iyo xumaan male qalbiga inta kulansaday ya saaxiibkiisa la yiraahdaa saaxibul qalbi almahmuum dul qalbi almahmuum ama qalbiga mahmuumka ah intaasi markay ku kulanto nabigu ku tilmaamay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi qalbi ay buuxisay ilaahay cabsidiisa iyo weynayntiisa iyo qadarintiisa iyo khashiyadiisa ayaa buuxisay qalbiga mar haday arintaasi degtana shaki male waa hagaagaya wuxuu nabigu ku tilmaamay sallallahu alayhi wasallam waa qalbi nadiif ah oo nabad gashan oo qashin iyo wasakh lahayn wasifa sirri nabigu sallallahu alayhi wasallam wasakhda iyo qashinka qalbigaasi uu ka fayow yahay waa dambi oo dhan ba soo galaya noocu dooni ha ku yimaado waa qalbi ka fayow dambigiiba hadana qaar kamida la sii magacaabay wuxuu ka fayow yahay qalbigaasi baqiga iyo xadgudubka xuduudii shariicadu dejisay inaad dhaafto oo ay kamid tahay inaad khalqiga ku xadgudubto afkaaga ama adinkaaga inaad adoomada ku xadgudubto laana wuxuu ka iimaanaya qalbigu ka iimaanaya arabka xadgudbaya qalbiga amraya gacanta xadgudbaysa qalbiga amraya lugta xadgudbaysa waxa amraya qalbiga amraya amarku qalbigu ka socdaa sidaas daraadeed qalbiga nadiifta ah ee aan xadgudubka iyo gardarradu ku jirin buu nabigu sallallahu rabbi wa salaamu alayhi sidoo kalena aan xasad ku jirin qalbi xasadka ka fayow aadamaha ilaahay wuxuu siiyay khalqiga wuxuu u qaybiyay umahan qaltaago mana dhibsado maxaa yeelay wuxuu huwa oo yaqiin u hayaa oo u rumaysan yahay rabbi baa sidan wax u qaybiyay xikmadiisuna ku qaybiyay sidaas daraadeed adiga dawriya kaalin kuma lihid limaada kaas la siiyay aad u xasti limaada kaas ilaahay ka fadilay aad u xasti allihi waxan bixiyay adigu maad weydiisatad u raadsatid intaad adoomada indhaha ku taagaysa wixii ilaahay siiyay was'alullaha min fadlihi allah baa bixiyay isagaana hayay u raadso xoogaagan ilaahay adoomada siiyay maxaa ku daba dhigay oo ugu xasti xasad male ilaahay wuxuu dadka ku fadilay kuma xasto qalbigaasi xasad kuma jiro qalbiga inta kulansaday ayuu nabigu ku sheegay sallallahu alayhi wasallam qalbiga mahmuumka ah garo oo darajada la gaarsiiyay iyo meesha nabigu ku sifeeyay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi cid gaari kartaa yar sidaas daraadeed baa nabigu ku sheegay sallallahu alayhi wasallam inuu dadka ugu khayr badan yahay sida markuu nabigu uga jawaabay sallallahu alayhi wa alihi wasallam su'aashii hore bay su'aal labaad weydiiyeen waxay yiraahdeen rasuulka ilaahay ninkaas yaa ku xiga ruuxa dadka ugu khayr ka badan ee carabkiisuna run badan yahay qalbigiisuna mahmuum yahay yaa ku xiga nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wa alihi wasallam adoonka adduunyada nacab aakhirana jecel adduunyadu u caraysan zakharifteeda iyo dhaldhalaalkeeda iyo macaankeeda iyo waxeedan buu nacab yahay ma rabo بدلkeedana aakhiru jecel yahay jannadii ilaahay la kulankiisa daawashada wajiga ilaahay naciimka iyo barwaaqada ilaahay aakhira dhigay taasa u muuqato uu jecel yahay adduunyadana wuxuu u nacayaa wuxuu og yahay inay middaas seejinayso wanaaga qiimaha badan ee aakhira yaala
sababta uu ku seegayo inay adduunyo tahay ayuu xaqiiqsaday saas daraaddeed buu u nacayaa cagsi wey ilaahay wuxuu inagu imtixaanay haddaynu nahay bini aadamka inaynu adduunyada jeclaanno dhaldhalaalkeeda jeclaanno quruxdeeda jeclaanno ay ina jiidato in aynu ka hormarino aakhiradii laakiin yaa waa ruuxa aakhiradiisa adduunka ka hormarinayo adduunkii u nacaya aakhira darteed waa ruuxa qalbigiisa yaqiintu fadhiisatay waa indhaha qalbigiisuna ay daawanayaan waxa ilaahay jannada dhex dhigay tabaaraka wa tacaala ee barwaaqo iyo khayr ah taa marka adduunyada loo fiiriyana waxba ma aha waa mataac waa alaab aan qiimo lahayn oo qadar lahayn oo waxba ku sinayn waa kaasaa ku xiga buu nabigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh saxaabadu intii kagama hadhina su'aal saddexaad bay weydiiyeen yaa saddexeeya bay yidhahdeen rasuulka ilaahay ninka saddexaad waa kee dadka ugu khayr badan nabigu wuxuu yidhi sal alla alayh wasalam ruux mu'min ah oo akhlaaq wanaagsan ku sugan buu nabigu yidhi sal alla alayh wasalam dhaqan wanaagsan dabeecad macaan loo soo dunmo isaguna dunma naxariis badan deeqsi ah waji furan addoommada anfaca cadaalad dulmi aan lahayn addoom akhlaaq wanaagsan ku sugan ayaa saddexeeya buu nabigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh laanna nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh allah tabaaraka wa tacaala wuxuu u soo saaray oo u soo diray oo mahaantii loo soo diray ka mid ahaa inuu dadka gaadhsiiyo akhlaaqda wanaagsan oo uu baro dhaqankii akhlaaqda wanaagsan sidaasuu nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh saddexdii su'aalood uga jawaabay su'aal marka isweydiiye adiga dib isugu noq waxaad isweydiisaa qalbigaaga xaalkiisu sidee wey waa su'aal muhiim qalbigaaga xaalkiisu sidee weeye xagga nadaafadda maxaa ku jira muxuu rumaysan yahay muxuu kafayow yahay carabkaaga xaalkiisu iyo see wey ma laba wajiila tahay ma nin kolba fadhiguu fadhiyo sheekadiisa qaabkeeda u dhigaata ma nin beenta ku xardhaa tahay oo dadka kaga qosliya oo ku maadeeya ma nin siyaasi oo beenta ka ganacsadaa tahay oo siyaasaddiiba ka fahmayo been la sheego war carabkaagu see wey leanna labadaas qodob qalbigaaga iyo carabkaaga waa labada ugu khatarsan nusuustuna tilmaantay wey see weeye xaalkaagu halkaa waxaad ka garan kartaa xageed kaga jirtaa dadka haddii qodobkaasi ka timaado aakhiradaada iyo adduunkaaga xaggay kuu kala joogaan ma adduunkaagaa kula weyn ma ganacsigaa kula weyn ma guryahaa kula weyn ya ma hantidaa kula weyn ma carruurtaa kula weyn ma shahawaadkaa kula weyn ma kuraastaa kula weyn mise aakhiradaada kula weyn waa qodobka labaad ee u baahan inaad ismiisaanto adigana jawaabta aad bixiso adaa isgaranaya allah baa ku yaqaana kadibna adaa isgaranaya qodobka xigee saddexaadi wax weeyaan dib isugu noqo akhlaaqdaada iyo dhaqankaagu see wey ma waxaa tahay ninka nebigu tilmaamay sala allahu calayhi waaalihi wasalam dadka waxa ugu shar badan ilaahay agtiisana maalinta qiyaamada ugu fog ruux ay dadku ka kala carareen dhibkiisa baqdin ay ka baqayaan darteed ruuxii arkaba waa ka cawdu billaysanaya gari ma gasho kamana baxdo meel alle meeshii la arko waa xadgudub waa dulmi afkiisa iyo adinkiisa laga nabadgeli maayo ma daalim baa tahay naxariis ma leedahay deeqsi ma tahay akhlaaqdaadu see wey khalqiga seed uga dhaqantaa ixsaan iyo samafal ma leedahay cadaalad ma leedahay akhlaaqdaadu see wey qodobadaas nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi wuxuu inoogu sheegayaa saxaabadana ugu sheegayaa qur-aanka iyo sunnaduna aad uga hadleen waxaa la doonayaa ruux walba goonidiisa inuu isu miisaamo kadibna wixii kaa maqan raadi waxaad haysatana ilaahay uga mahad celi siyaadana dalabo qadaray ku istaagta ma lehe siyaadso oo badso ربنا كشكري تبارك وتعالى صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم حسن أخلاقنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وسبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.